waxaan saaka joognaa dugsiga ugaas maxamuud ee magaalada dhagaxbuur dugsigaas oo ah dugsigii ugu horeeyay magaalada laga dhagax dhigo waxbarashada nidaamigana meeshii ugu horeysay ee laga bilaabo magaalada dhagaxbuur marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dhinacna anoo ka xumaansho muujin kara muuqaalka uu leeyahay iyo maaragtay iskuulka wax ka muuqda iyo qiimaha uu leeyahay oo ah maadaama uu yahay magaaladan qadiimiga ee taariikhiga ah ee weyn ka mid ah magaalooyinka ugu weyn magaalooyinka deegaanka iskuulkii lagu bilaabay waxoogaa isha uu leeyahay saaka markaad aragto aad uguma farxaysid waxaad is odhanaysaa waxoogaa dhaliil baa jirta haddana dhinaca kale dee inaan ugu yaraan maamulka sharafta leh ee magaalada dhagaxbuur oo hadda isu taageynaya hawshaa wax ka qabtaan oo iskuulka muuqaalkiisa iyo bilicdiisa iyo tayada waxbarashada iyo waxoo dhan hal mar maxaa la yidhaha meesha wax lagu baranayo inay noqoto meel ku habboon waxbarashada jawiga la wanaajiyo kadibna tayadii iyo wixii qayb bay ka tahay in maaragtay tayada la wanaajiyo in iskuulka jawigiisii la hagaajiyo hadday tahay dhinaca dayactirka qurxinta guryo cusub oo lagu daro beerista dhirta guud ahaan waxay qayb ka noqon doonaan ma ka qayb qaadanayaan waxyaabahaas oo dhani inay soo jiitaan ilmaha iyo dadka waalidka iyo cid kasta oo doonaysa macalinka laftiisa wax dhigaya meesha wax ku dhigaya markay tahay meel habboon sida uu wax u gudbinayo iyo xamaasadda wax ku dhigaya waxay ka fiicnaanaysaa markay tahay meesha meel dayacan marka runtii iskuulkaas oo ah dhinaca kalena waa meesha magaaladu ay ku tukato ciidda oo dadka ugu faraha badan shirarka ku qabsato garoonka ugu weyne magaalada ku yaala maxaa la yidhaha magaalada dhexdeeda ku yaala magaaladana bartamaheedii oo si dhib yar cid waliba usoo gaari karto oo la arko iskuulkaasaan waxaan leenahay saaka waxoogaa qayla dhaana oo aan doonayno dhalinyarada maamulka iyo mas-uuliyiinta maamulka magaalada oo isu taagay inay wax ka qabtaan wax badan magaalada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan annaguna diyaar u nahay inaan qaybteenna ka geysano annaga oo isla garanay inaan maaragtay mushaharkeennana aan ku deeqno dhinaca kalena aan isu taagno sidii aan wax badan uga qaban lahayn annaga oo magacaas huwan inaanu dadka aanu galaangalka u yeelan karno ama la xidhiidhi karno ama annaga awooddeenna inaan sida ugu fiican aan uga qayb qaadanana waan isu taagaynaa anigoo matalaya asxaabta kale ee 10ka ah ee magaalada dhagaxbuur ka soo jeeda iyagana waxaan leeyahay isu taaga anigaa ballankaa soo qaadnay intanadii tagtay inta aan fursadda helin annagaa u soo qaadnay marka cid walba inay isu diyaariso cidda ay la xidhiidhi karto iyo sida wax uga qaban karto